السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah. So there should be a permanent end of the war, and unless we get to that, I think we need to continue fighting for the sake of our people and our security. waa Iran oo si adag uga hortimid waxa la yiraahdo xabad joojin, laakiin dagaalka ay sii wadi doonto ilaa iyo si rasmi ah colaadan loo soo afjarayo. ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran oo weerar kale caawa ku qaaday gudaha Israa'iil waxay kaloo ay sheegayaan in ay burburiyeen nidaamyada difaaca Mareykanka ee THAAD loo yaqaan. inkastoo Iran ay ku gacan sayrtay xabad joojin, haddana dhanka Israa'iil laamaha ammaanka iyo siyaasadda ayaa la sheegayaa inay bilaabeen wada xaajoodyo la xiriira sidii dagaalkan looga bixi lahaa. waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee amuurahani. Trump oo isna sheegaya in hogaamiyaha cusub ee Iran ay tahay in Washington raalli ay ka tahay. Cumaan oo noqotay dalkii ugu horreeyay ee Carbeed ama dalka kaliya ee Carbeed ee si adag u dhaliilay duulaanka lagu qaaday Iran ee Mareykanka iyo Israa'iil ay wadaan. dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa. soo duway ayaa qadka ku jira. maxamedan ku bilowna qodobada wararka ugu waaweyn. telefishinka waddanka Iran ayaa ku waramaya in Iran ay difacdo kale oo gantaalo ah oo culeyskoodu uu yahay midkiiba 700 oo kilogram oo qayb ka ah waxay ku tilmaantay dufcadda 28aad ee weerarada gantaalada ku qaadhay Israa'iil. sida laga soo xiganaya warbixinta, weeraradan ugu dambeeya ayaa waxaa la isticmaalayaa jiilasha cusub ee gantaalada madaxyada badan ee la yiraahdo Qadar, Cimaad iyo Khaybar Shakaan. telefishinka Iran ayaa sheegaya Khaybar Shakaan gantaalka la yiraahdo in wareegii ugu dambeeyay la riday waxa uuna gaari karaa 450 kilomitir, wuxuuna awood u leeyahay in la hago ilaa ay inta hadafku ka haleelayo. warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa in gantaaladii hore loogu weeraray Israa'iil ay dhibaato weyn u geysteen meelo badan oo Israa'iil ka mid ah. warbaahinta Iran ayaa sidoo kale sheegaysa in difaaca raadarada Israa'iil uu nugul yahay iyo nidaamka difaaca cirka. sababtaas ayaa keenaysa in gantaalada ay ku guuleysanayaan in hadafyada loogu talagalay ay burburiyaan. ciidamada ilaalada kacaanka ee waddanka Iran ayaa sheegaya in ay burburiyeen 4 raadaar oo lagu xiriirinayo nidaamka difaaca cirka ee Mareykanka ee THAAD la yiraahdo gobolka bariga dhexe 24 saac soo dhaafay. sida laga soo xiganayo warbaahinta waddanka Iran IRNA, raadaaradaasi ayaa waxaa lagu duqeeyey gantaalo la hago oo nishaabkooda sugan yahay intii howlgallada uu socday ka dhanka nidaamka difaaca cirka iyo kaabayaasha difaaca cirka ee Mareykanka. THAAD oo loo yaqaano in uu iska difaaco gantaalada hawada sare ku socda ayaa waxa uu ka mid yahay nidaamka difaaca cirka ugu muhiimsan ee Mareykanka looguna talagalay in la ogaado lagana hortago gantaalada ballistikada. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hogaamiyaha xiga ee ruuxiga ee waddanka Iran ay waajib tahay inuu noqdo mid u cuntama waddanka Mareykanka. digniintaas ayaa waxa uu ku sheegay hogaamiyihii aanan Mareykanku ansixin inuunan ku waari doonin xukunka. waxa uu la hadlayay warbaahinta Mareykanka. qaar ka mid ah Trump ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay rabto in damaanad la siiyo ah in Iran aynan hub nuclear mar dambe samaysan doonin. hogaamiyaha ruuxiga ah ee waddanka Iran ma noqon doono mid ku waara jagadiisa haddii aynan dowladda Mareykanka ansixin, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey. waxaa sidoo kale uu ku eedeeyey xukuumadda Iran inay qorsheynaysay inay gobolka bariga dhexe qabsato. sidoo kalena Iran ayaa waxa uu yiri waxay isu diyaarinaysay inay weerar ballaaran ku qaado gobolka bariga dhexe. wasiirka arrimaha dibadda ee Cumaan, Badr bin Hamid al-Busaydi, ayaa cambaareeyey weerarka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen militarigooda waddanka Iran toddobaadkii la soo dhaafay. bartiisa social media ama baraha bulshada
ayaa albusaydi waxa uu ku qoray in uu tallaabooyinka ay qaadeen maraykanka iyo israa'iil ee ka dhanka iiraan uu ku sheegay inuu yahay mid akhlaaq xumaha qaanuunkana khilaafsan. waxaa kale uu sheegay in iiraan ay weerarto wadamada deriskaana ay tahay wax aad looga xumaado oo aan la aqbali karin. wuxuuna ku baaqay isxakameyn dhinacyadoo dhan ah, xabad joojin iyo si dhaqso ah in loogu soo noqdo wadada diblomaasiyadda iyo wadaxaajoodka. militariga israa'iil ayaa ku dhawaaqay in weeraro badan ay qaadeen oo ka dhana xukuumadda iiraan kaabayaasheeda kala duwan ee ku yaala magaalada tehraan. waxaa kale oo la sheegay in la xaqiijiyey in kaabayaal qaar loogu talagalay satellite-ka waddanka iiraan in ay israa'iil bartilmaameedsatay. hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose xakiim jeffries ayaa cambaariyey dagaalka ka dhanka iiraan, wuxuuna sheegay in shacabka maraykanka uuna taageerin dagaalkaas, islamarkaasna uu yahay marin habaabin halkii la rabay in walwalka dhaqaale ee waddanka gudihiisa ka jira in wax laga qabto. jeffries ayaa sheegay in maraykanka uu doonayo in xukuumaddiisa ay bartilmaameed ka dhigato sidii hoos loogu dhigi lahaa kharashka iyo sicir bararka waddanka ka jira, halkii ay ka maalgelin lahayd dagaal dibadda ah. shacabkeenna uma baahna buu yidhi lacagtooda in lagu khasaariyo dagaal. waxaa sidoo kale uu digniin ku bixiyey in ciidamo loo diro waddanka iiraan, wuxuuna sheegay dimuqraadiga xisbigiisa inuu ka soo horjeedo colaad dheeraata oo bariga dhexe inuu maraykanka ku galo. ma taageerina buu yidhi in ciidanka maraykanka la geeyo waddanka iiraan, mana doonayna buu yidhi dagaal ma dhammaata ah ee bariga dhexe lagu galo. hagaag maxamed waa mahadsan tahay. daawadayaashana way mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhoweynaynaa. daawadayaal waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii warah ee degdeg ah ee soo kordha. ha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayiis. soo dhowaada mar kale daawadayaal. weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. intaanan u gudbin falanqaynta iyo maxamed, bal aynu egno warar degdeg ah oo hadda soo dhacaya. dalka sacuudiga waxaa la sheegayaa in deegaan ku yaal alkharaj la sheegayo in 2 qof ay ku dhinteen, 12 kale ay ku dhaawacmeen kadib markii wax loo malaynaya gantaal halkaasi ay ku soo dhaceen. warkan wuxuu ku soo kordha waan idin soo gudbin doonaa. sidoo kale waxaa kaloo wararka ka mid ah oo hadda soo baxaya in la leeyahay dhanka Israa'iil badda mootan iyo waadi caraba ayaa waxaa laga maqlayaa seeriga deynta ka bixaya gantaalada, halkaasi oo la sheegayo in gantaal ay ku soo fool leeyihiin. waa hagaag wararkaasi wixii warar soo kordha waan idin soo gudbin doonaa. maxamed, aan ku bilowno hadalka ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Abbas Araghchi. intaadan noo soo gudbin warbixinta kale ee warbaahinta Israa'iil ay leedahay, Israa'iil waxay ka fakaraysaaba sida dagaalkan uga bixi lahayd. hadalka Abbas Araghchi maxaynu ku fasiri karnaa? dagaalka ayaa wuxuu marayaa marxalad aad xasaasi u ah, iyadoo toddobaadkii labaad la galay. ayaa ilo badan oo aad ula socda dagaalka waxay sheegayaan maraykanka iyo Israa'iil inuu xaal ku xun yahay. marka laga gudbo maraykanka iyo Israa'iil in ay propaganda dhaaminayaan. Araghchi waxa uu ka hadlay waxa weeye maraykanka ayaa dalabaad dhexdhexaadiyaal u dirsaday inuu xabad joojin rabo. Araghchi oo arrintaas ka jawaabay wuxuu yidhi anaga xabad joojin ma doonayno, waxaan rabnaa dagaalka si rasmi inuu dhamaado, haddii kale dagaalku waa sii soconaya. arrintaasna waxay wejigabax ku tahay madaxweynaha maraykanka oo aanan ka xishoonayn in uu hadallo marin habaabina saxaafadda si joogta ugu sheego. tan kale oo ayadan is soo taraysa ayaa waxay tahay gantaalada ka imaanaya dhanka Iiraan iyo diyaaradaha droniska khasaaraha ay geysanayeen aad ayuu u ballaaran yahay. marka laga gudbo gobolka bariga dhexe oo dhammaan ilaa iyo 9 wadan xerihii militariga ee maraykanku ku lahaa la burburiyey, oo xataa askartii laga wareejiyey xeryaha oo hoteelada la geeyey looga daba tegey. ayaa haddana waxaa soo baxaya Israa'iil dhankeeda gantaalada ku dhacaya magaalooyinka waaweyn inay waxyeello weyn geysanayaan, Israa'iilna aynan dagaalkan sii wadi karaynin, shacabkana la caburinayo oo mudaaharaadyo iyo ay jeclaan lahayn inay sameeyaan, laakiin waqtigooda inta badan waxay ku jiraan dhulka hoostiisa, sababtoo ah gantaalada Iiraan ka imaanaya ma aha kuwo kala joogsanaya, wax la maqlay oo la arkana maaha. hore ayay Israa'iil iyo Maraykanku ugu andacoonayeen Iiraan inay leedahay 3,000 oo gantaal agab lagu qiyaasay oo gantaalada ballistikada ah, laakiin gantaalada ilaa iyo hadda la riday, dufcadaha ilaa iyo hadda la riday waa ka badan yihiin
40,000. waa gartay bal aynu codka wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan aynu maqashino isagoo la hadlayay warbaahinta Mareykanka mar la weydiiyay arrinka xabad joojinta. So there should be a permanent end of the war, and unless we get to that, I think we need to continue fighting for the sake of our people and our security. madaxweyne Aragchi wasiirka arrimaha dibadda waddanka Iiraan waxa uu yiri waxa waajib ah in si joogto ah dagaalka loo joojiyo inta arrintaas laga gaarayo anagoo eegayna danaha dadkeena iyo dalkeena dagaalka waa sii wadaynaa xabad joojin joogto ah oo aan lagu xadgudbayn arrintaasna waxay ku muujinaysaa mowqifka Iiraan ay taagan tahay inay dagaal ku gacan sarreyso waaya Iiraan waynu aragnaa marka mowqifkeeda Israa'iil waxa la leeyahay waxaba ka bilowdaba wada xaajoodi ku saabsan sida dagaalka looga bixi lahaa arrintaas bal waxay warbaahinta Israa'iil ka leedahay inoo faahfaahay maxamed janaalka 12aad ayaa doodii ka dhacday leeyahay sidee Israa'iil mixnadan ay ku jirto ay uga bixi kartaa khiyaaraadka ay leedahay maxay tahay toddobaadka soo socda janaalka 12aad ayaa wuxuu dabool ka qaaday in qaybaha siyaasadda iyo qaybaha ammaanka hoggaanka dadka ay bilaabeen wada xaajoodyo khiyaaraadka Israa'iil ay dagaalka uga bixi karto haddii Iiraan xukuumaddeeda la bedeli waayo waxa ay ku tilmaameen janaalka in Israa'iil xaaladaha qaarkood ay uga bixi karto dagaalka haddii la burburiyo gantaalada waddanka Iiraan haddii la burburiyo warshadaha soo saara qalabka militariga ee waddanka Iiraan iyo haddii laga taqalluso barnaamijka nuclearka ee waddanka Iiraan janaalka ayaa sidoo kale waxa uu sheegayaa Israa'iil in ay tilmaamayso in Iiraan ay dardar gelisay dhowrkii maalmood ugu dambeeyay gantaalada iyo diyaaradaha droniska ay Israa'iil ku soo ridayso colaadana waxaad moodaa hadda inay marayso marxalad aad xasaasi ah marka la fiiriyo Mareykanka iyo Israa'iil weerarkii ay toddobaad ka hor ku qaadeen waddanka Iiraan Israa'iil ayaa waxay ku qiyaasaysaa Iiraan in ay haysato boqolaal gantaalada ballistikada ah waxaana muuqata dhowrka maalmood ee soo socda ama toddobaadka soo socda inuu yahay toddobaad aad muhiim u ah oo qaabka uu dagaalkan u socon doono la ogaan doono laguna tilmaamayo warbixinta sida muuqata toddobaadka labaad ee colaadani in uu noqon doono mid aad u dardargala dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ee wadaan dhinacooda sidoo kalena xarunta ama xudun waxa uu noqonaya dagaalkaasi in ay beegsadaan Mareykanka iyo Israa'iil warshadaha agabka militariga soo saaray waddanka Iiraan ciidanka cirka iyo xarumaha hubka warbixintana sidoo kale waxay sheegaysaa in Israa'iil u baahan tahay dhowr toddobaad oo dheeraad ah si ay howlaheeda u soo dhamaystirto haddii Iiraan ay awood u yeelato in ay mar kale agabkan dib u samaysatana laga hor istaago waa gartay waaya marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay in Mareykanka iyo Israa'iil ay hoos ka wadaan wada xaajood bacdama la leeyahay Israa'iil waxay rabtaa in dagaalkan sida uga bixi lahayd uga baxdo waxa lagu fasiri karaa markaas in si hoose wada xaajood ay u socdaan Mareykanka iyo Israa'iil dagaalkan sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan ayaga bilaabay xisaabaadkooda iyo ku talagalkooda wuxuu ahaa hogaamiyaasha iyo taliska iyo madaxda Iiraan marka la laayo waddanka inuu isku dhex yaaco kadibna waddanka Iiraan uu noqdo meel fawda ah laakiin arrintii way shaqayn weyday waxaana muuqata beddelkeedii in Iiraan ay waddamadii xiriirka la lahaa Mareykanka ee gacanka ku yaalay saldhigyada militariga ku lahaa ee mid walba burburisay sida isu difaacdeena ka yaabiyey dadka arrimaha dagaalka la fugura waxaana muuqata warar ka soo baxaya Mareykanka iyo Israa'iil inay propaganda u badan yihiin khabiirada dhan waxay isku raacsan yihiin waliba kuwa Mareykanka waliba ninaan la yeerasan karayn Colonel Douglas McGregor oo xukuumaddii hore ee waddanka Mareykanka Donald Trump la taliyo u ahaan